faraxsanahay inaan maanta halkaan loogu yimaado wafdi ballaaran oo hogaaminaya safiirka UK iyo qaybo badan oo ka tirsan howlwadeennada safaaradda iyo hay'adaha samafalka ee la shaqeeya Ingiriiska ee Soomaaliya jooga taasoo ahayd in aan ka wada hadalno wax badan oo ku saabsan horumarinta siyaasadda iyo guud ahaan mishinka UK waxa uu Soomaaliya ka qabtay iyo shaqadoodu waxay tahay waxa safiirku igala hadlay waxay ahayd bal inaan uga warbixiyo arrintii Garoowe iyo processkii arrintii siyaasadda Soomaaliya shirarkii meesha marayaan waanan u sheegnay meesha waxa dhacay iyo waxa jira iyo arrinta Soomaaliya meesha taagan tahay iyo mas'uuliyaddeeda cidda iska leh waxa kale oo u sheegnay oo u sharaxnay arrinta doorashooyinka ee Jubbaland oo aan u sheegnay inaan anigu saacadaas laga bilaabo mas'uuliyaddeeda guddi doorasho jirta guddigaas ay u taala guddigaas ay dawladda iyo musharaxiinta cidda ka wada hadlayaan inay tahay wax guddi uu maamulayo maamulku uu fara shaqo ku lahayn waxaan u sheegnay oo ka wada hadalay inaan doonayno inay dhacdo doorasho free and fair waqtigeeda dhacda faragelin ayna u baahnayn iyo cabashada aanu ka qabno in la soo abaabulo ama dhibaato loo geysto intii la yiraahdo musharaxiin iyo hal la qaado ciidamada iyo amniga in khalkhal la geliyo tallaabooyinka qaarkood oo dawladdu ay ka shaqaynayso ayna sax ahayn guud ahaan fikirka aan qabno waan kala qaadanay safiirka isaguna dareenkiisa uu noo cabiray waxa uu ku taliyana waxay ahayd Soomaaliya in la ilaaliyo wada shaqaynteeda iyo midnimadeeda si Soomaaliya ay u gaadho guulo dhaxalgala horumar midhalana ay u gaadho ku soo dhawow saacad safiir qaybo badan oo waftigiisa ka midana waxay la jiraan wasaaradihii ay wada shaqayntu ka dhaxaysay waxaan rajaynayaa inuu safarkan yahay safiirka safar muhiimad badan ka tagi doona haddii la aad baad u mahadsantahay Mr. President, thank you for your warm welcome to Kismayo today. This is my first visit to Jubaland and this beautiful city since I became British Ambassador. I'm delighted to have brought with me a delegation from across the embassy today, and we've been discussing some of the pressing challenges facing this part of Somalia. We've been discussing the fight against Al-Shabaab. We've been discussing the challenges caused by the lack of rain. We've been discussing what more we can do to create jobs or provide durable solutions to the problems of refugees. But we've also been talking, of course, about some political issues. I have expressed our desire to support, where possible, a dialogue between the federal government and the member states to resolve some of the key outstanding challenges of preparing for the next elections, of fiscal models, of security models, of completing the constitutional review. And we've also been discussing the upcoming elections in Jubaland and what best can be done to ensure a fair, transparent and honest process.